qabiilka dhaafno dheregna aynu gaarno cudurka aan dhammayno haddii dhereg la doono oo aan dhib loo adkaysan oo aynu meel dhacdiidno jiilka cusub ee Soomaaliyeed waxa uu soo dhaweynayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan iyo madaxda iyo ururada kala duwan ee maanta halkan martida inoogu ah si qaas ah ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed waxa uu soo dhaweynayaa madaxda midowga ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan raabidada hablaha Soomaaliyeed ee jaamacadda Afriqiya golaha ardayda qaranka Soomaaliyeed jamciyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan golaha dhalinyarada Soomaaliyeed naadiga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan golaha warbaahinta Soomaali Carbeed ee Suudaan dhegeystayaal daawadayaal kasoo qaybgalayaasha sharafta leh markana kusoo dhawaada faale iyo taariikh kooban oo ku saabsan ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed oo inoo soo jeediyo xoghayaha guud ee ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed ahna xubin ka mid ah golaha shuurada ee midowga ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan xoghayaha guud waa Cabdinaasir Maxamuud Xasan kusoo dhawaada gudoomiye. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قلنا ما بعد أموري وحسلام يا كافر الله وأموري دكتور فوزي دكتور حسين بشير دكتور عمر رشيد دكتور عبد الله حسين سوف الله حسلام يا من هو اتحاد فقه الصوماليات لفقه السودان سوف الله حسلام يا ururka gabdhaha jaamacadda Afriqiya ururada saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ayagana noo soo qaybgalay barnaamijka sidoo kale waxaan salaamayaa jamciyadda shabaab alwadani jamciyadda muctamar wadani shabaab Soomaali miiskada asiga nala jooga dhammaan kasoo qaybgalayaasha si gaar waxaan salaamayaa Allah Soomaaliyeed ee barnaamijka nala soo qaybgalay intaa kadib anigu ku dheeraan karin waxaan doonayaa waxay taariikhda inaan soo aasaasnay ururka jiilka cusub ee Soomaaliyeed iyo waxyaabihii ka dambeeyey inuu aasaasmo iyo markii uu aasaasmo kadib waxyaabihii xubnaha dadka ka lagu soo doortay saan u soconna waa 1991 dowladda Soomaaliya markay burburtay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay noqdeen dhibaatada ugu badan dadka ay soo dood saartay kuwa oo inta badan ahaa kan wax geysanay iyo kan wax loo geysanay labaduba ay dhalinyaro ahaayeen intaa keliya kuma simanay dadka haddana waxbarashadaanta ku dhacday run ahaantii haddana dibadaha u baxay badda ku dhimanaya iyagoo tahriibaya markii qurbigii tageen haddana dhaqankii iyo diintii ka tegey dhammaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayay ahaayeen maadaama marka annaga aan nahay dadkii burburkii ku soo aaday islamarkaana la doonayay jiilka cusub ee Soomaaliyeed ee maanta kuwa fariistay waddanka bursan dhibaato ka taagan tahay in la badbaadiyo inta hartay sidaa darteed ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ka barata waxay markii ugu horeysay isla falanqeeyeen in urur wadani ah oo isla markaa ka madax bannaan dhammaan waxyaabaha Soomaalida lagu yaqaano sida qabyaaladda isfaquuqa iyo wixii lamid ah dadka madax bannaan oo fikirkooda midaysan yahay oo dhibaatada waddanka ku jirta oo ku jira iyo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira intaba ku istaagta ayaa run ahaantii wuxuu ahaa ururku markii ugu horeysay fikrad dhalinyaro Soomaaliyeed ay isu keeneen kadibna laisla falanqeeyey in mas-uuliyadda run ahaantii aad weyn in la wada qaado ayadoo ammaanad aad u culays badan ay tahay oo qof kasta waajibka saaraa oo gudanayo sidaa darteed ayaa ardayda ku sugan dalka Suudaan waxay fariisteen
2009 bishii shanaad ayagoo isla markaa ka hadlayo sida uu ku hirgelin karo urur Soomaaliyeed oo wadani ah oo run ahaantii waxyaabihii Soomaalida dhalinyarada la degay dhammaan ka madax bannaan. Ururku wuxuu ku guuleystay kadib wadatashi badan iyo afkaar badan oo la isweydaarsaday in ururkii la aasaaso taariikhdu markay ahayd bishii 6 kadib markii la aasaasay ururku kuma siman inuu suudaankiisa wax ka qabto. arrimihiisa waxaa ka mid ahaa in uu haddana tiigsado ardayda Soomaaliyeed ee dibadda u baxday iyo kuwa waddan ku sugan ee run ahaantii duruufta aad ka u adag wax ku baranaya labadaba sida uu isugu xirin lahaa loona heli lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo maskaxdeedu midaysan tahay cududooda midaysan tahay. sidaa darteed xogayaha arrimaha dibadda iyo dhammaan golayaasha golaha fulinta waxay istaageen in isla markaa haddana la furo xafiisyo inta badan wadamada dibadda iyo gudaha labadaba ayadoo isla markaa la tiigsanayo wadamada ay ugu badan yihiin ardayda Soomaaliyeed. dib wuxuu ku guuleystay in uu xafiisyo bannaanka uu ka furo wadamada dibadda ah oo runaantii ugu badnaayeen sida waddanka Malaysia oo dad badan Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin, waddanka Pakistan, China hadda ku sugan ayaa jirto, sidoo kale Kenya iyo gudaha Soomaaliya oo marka hadda ugu weyn oo hadda ku yaala magaalada Muqdisho. isla markaana waxyaabaa aan tiigsanayn ay ka mid tahay in gobollada kala duwan ee waddanka Soomaaliya ayadana xafiisyo kala duwan laga furo. waxaan la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed waqtigii xornimada la qaatay ilaa hadda dhibaatada ugu badan dadkay soo food saaraysa, isla markaana had iyo jeer wax lagu jibay in ayaga ay ahaayeen. annagoo la socon isla markaa wadamo annaga naga bacda qaatay naga dib qaatay sida Malaysia oo kale 1964 in maanta aan la socon horumarka ay gaartay ayadoo dhibaatadan ay ka saareen dhalinyaro waddanka oo gashay oo run ahaantii 64 markay qaateen haddana taariikhda waxay Malaysia ama u laabto. waxaan la soconaa waxaa ku guuleystay oo ilaa 85 hogaaminayay niman aqaliya oo run ahaantii markaana inta badan isticmaalkii shaqadiisa ku shaqaynay. laakiin 1985 markii la gaaray dhalinyaro midaysan fakarkooda midaysan yihiin oo hogaaminayay Mahathir Mohamad ayaa ku guuleysteen. waana la soconaa maantana يعني أنا جاوا برشوا أنا وأنا صار هرمك أو سمري مدوني نقول هذا دمان كسر بلاش عليه ما سين دمان الكسر أو كبر إيش الصومالي يبغى إنه كسر دمان كان فرق يوصلوا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس يعني وحنفلي إن هذا تاريخي فطاين قبل أتكشف الكجيل الصومالية. مدودا أورك جيل كأصل الصوماليين أما ضد علميات كانوا حقوق تلقائيين كيف الإنسان الذي يرى الصوماليين بينهم بايدون اللي يكجوان كتقل جناش شرط له مركنا كسر دوادا ضد علميات كي ونسوق بيننا مدودا بينه دكتور روزي محمد بارو إيو دكتور عبد القادر حرسي محمد waxaa kaloo sidoo kale marti ku ah Dr. محمد رشيد Sheikh Abdi Samad iyo Dr. Hussein Bashir Sheikh Umar. markana aan idinku wareejiya Cabdullaahi Ciise Hebel si uu noogu hadiyo madwada madad cilmiyeedka. waxaan leeyahay Cabdullaahi ku soo dhawaad microphone.